بسم الله الرحمن الرحيم ولما أركان وهان سلام يا شعب Soomaaliyeed ay dhageysanayaan meel walba ay joogaan waxaan idin leeyahay dhamaantiin maanta waxaan rabaa inaan daabto Soomaaliya ninka og halka laga burburiyay cidda burburisay ayaa fahmi karaya inuu Soomaaliya xasiliyo nabadna ka keeno 1983 ayay ahaayeen markii dalalka hore u maray miiska ay u qaraaceen madaxweynihii hore ee Siyaad Barre inay isaga iyo jiilkaaba bedeli doonaan oo ay samaysan doonaan jiil cusub maadaama hadda aysan isdhaamin oo nin kasta oo gacanta laga geliyo xilka uu yahay kud u gur oo qanjo u gur oo military ah waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed ee dhageysanaya ee maanta ilmaqlayo inay ogaataan Soomaaliya waxay leedahay shan cadow oo ay ka diglaadahay oo Soomaali ahayn oo soddonka sano ee Soomaaliya ay burbursan tahay majaraha u haya siyaasadda dalkana hagaya saddex waa shantaba waa kala ujeedo laakiin shantooda waxay ka midaysan yihiin hal ujeedo oo ah Soomaaliya inaysan midoobin Soomaaliya inaysan dib dambe qaran u noqon oo dawlad lagu ku taaga aysan noqon siyaabaha dhibaatooyinkan inoo kan waxaad xasuusanaataan dawlad kasta dunidani haddii aad dhaqaale shidaal ah ama diamond ama uranium macdanada qaaliga haddii khayraad alla aad leedahay nabad ma noqonaysid dalalka dhammaan khayraad kale waa dalalka hulcaya ee xabadda aan ka istaagin ee faragelinta siyaasadeed aan ka dhammaanin ee dibadda kaga imaata kanka Brazil haddaan taariikhu siiyo dawladdan baa la burburiyay waxaana la musuqmaasuqayay diamondka dalkaasi oo ah dalalka ugu qanisan diamondka in ay dhacaan dad shacab ah oo ciidamo samaystay oo ay ka dharkaan ultimana laba loo kala jaray si loo kala qaybsado labadii dawladeed ee lugta ku lahayd Soomaaliya shanta gobol sababta loogu qaybiyay waxa ay tahay inaad fahantaan rabaa federaalka yaa u sameeyay shantan cadow ayaa sameeyay shantan cadowna ujeedadooda waa kala ijooda laba baan idin sheegi karaa saddexda kalena waa carab iyo waxa ka mid ah dawladaha quwadda waaweyn labada kale waa labada dariska aan nahay oo iyagu bataatanba danahooda ay tahay dalka inay qaataan oo dhulka ay sii qaataan waxaan rabaa halka dalalka kalentana ay yihiin saddexda kale ay u midowday Soomaaliya inay kala qaybiyaan oo shan meelood oo isla eg inay ka dhigaan oo mid walba goonideeda u awood badan u madax bannaan haddii kale oo aanan midba midka kale shantaas see loo kala qaatay Soomaaliya wuxuu ilaah ku manaystay shidaal diamond iyo dahab waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo sababta miyaad ogtahay isweydiisay federaalka loo keenay sidaa ayay ka mid tahay waa burburinta qarannimada iyo midnimada Soomaaliyeed waxaa loo keenay oo kale waayo federaalka waxaa loo keenaa dad kala qoomiyada ah laakiin sun ayuu ku noqdaa dadka markay isku af iyo isku diin iyo isku dhaqan ay yihiin hal qoomiyadna ay yihiin sidaas ayaa loo keenay in la kala qaybiyo oo shanta loo sameeyana waxay tahay weligeed Soomaaliya inaysan midoobin oo ay midnimo qaran la imaan taa micnaheedu waxa weeye shanta gobol waa shan dhaqaale leh oo dawlado kala qaybsadeen waxaa ka mid ah Puntland iyo Somaliland oo intooda badabad aad khayraadka ugu buuxa ay leedahay oo ku teedsan badda ugu weyn ee Soomaaliya taasi oo ay tahay inuu gacanka lug ay la geli karaan halkaana maraakiibta iyadana ay tahay istaraatiiji hadduu dhaco dagaalka saddexaad ee adduunka lagu xisaabtamaayo oo xudun u ah caalamka waxa kaleento oo iyadana garab socdo South West oo ah diamondka khayraadka dahabka inuu ilaahay ku manaystay aan Soomaalida aan ogeyn ilaa ceel barda ilaa gala dhulka meel banka la yiraahdo oo goday wax yar u jiro waxa kale oo iyadana la socoto uraniumka ilaahay ku manaystay ee dalka labaad ee adduunka lagu xisaabtamayo ama ka badan oo wangalahayo meesha loo yaqaan Galmudug xamar iyo muqdisho iyo kismaayana waa dhul beeraad leh oo khayraad leh oo intooda badanna saddexda shidaal oo ugu waaweyn ceelasha ay leeyihiin saddex shidaal oo kale inta 7 shidaal oo kale oo ceelasha ah oo badda dhexdooda ah oo ceelasha shidaalka badda laga helo ugu waaweyn ah iyagana inay leeyihiin kuwaas oo ku teedsan marka ilaa Kismaayo ilaa xuduudka badda Soomaaliya iyo u dhaxeeya Kenya waxaan rabaa inaan hal ina xasuusiyo Galmudug
inta kaleento maxaa maamulo loogu ogolaaday laakiin galmudug ay u degilaadahay mi isweydiiseen Puntland iyo Somaliland khayraadkooda waa khayraad dabiici ah oo in la soo saaro oo dawladda u baahan oo aan si kasta iyagu ay u nabad yihiin aan dhici kareynin in ma aragtay wax dhibaato hadda ka imaan kareynin ayaa nabadda loogu ogolaaday laakiin ha ku xisaabtamin inay weligeed maamulka galmudug ay midowdo weligaa iyo allahaani niyadaada ha gelinin waxaa ka buuxa uraniumkana haddii halkaan nabad ay hesho waxaa la og yahay inay dawlad kasta qodan karto oo ay la soo bixi karto sidaa aaweytana waa in loo sameeyaa afar mabaadi oo weligood aan soo imaanin oo halkaan nabad ka dhicin ilaa laga soo danaysanaayo oo danta guud ee Soomaaliya laga leeyahay ay maalinka danta guud ee Soomaaliya laga leeyahay gacanta lagu dhigo ayay galmudug degaysaa waayo number 1 waxaa lagu miineeyay qole la yiraahdo Ethiopia oo xagga u sii marta mar walbaba oo 100 xuduud la leh oo meesha rabtay ka soo gali karto waxa weeye qabiilka halka dago oo 4 qaybood loo kala qaaday oo hoob la iskugu dhiibay oo kuwana loo bixiyay muxuu ahaa ahlu salla wa jamiica qabiilada kale intana weligood ay heshiineen iyo galmudug oo dhinac u taagan taa micnaheedu waxa ay tahay haddii ay nabad hesho waxay la mid tahay khayraad banaanka yaalo oo diyaarada lagu guri karo galmudugna ay la xiran karayso inay hesho inay toos oo la xiriirto dawladaha awoodda u leh sababaha aan mar dawlad Soomaaliya looma ogolaanayo dawladaha ka soo horjeeda reer galbeedka ee quwadda nuclear kale inay Soomaaliya ku yeeshaan maadaama dhul uranium uu yahay haddii aan soo qaato mabaadiida way dheer tahay mana geli karaya hadda ma soo bixi karo gobol kastana waa inay qiimeynaya ujeedada laga leeyahay waxa laga leeyahay beledweyne iyo hiiraan shabeelooyinka Hirshabeelle loo bixiyayna dawlad ayaa qaadatay oo micnaheega waxa weeye waa dhul khayraad beerala investment ah oo aad u weyn oo baaxadiisa aan la soo koobi karin waxa ka buuxo oo kale macdanada qaaliga ah iyagoo oo fiidow iyo dhulkaasayto ilaa bariga uu ka buuxo macdana aad u qaala badan oo hadda halkan aan ku soo kabsamin oo potassiumka uu kamid yahay ayaa ka buuxa waxaan rabaa Soomaalida inay ogaato dhulka khayraadka ku jiro waxa lagu qoodin karayaa iska fadhin karaya ilaa 200 bilyan oo qof see lagu ologolaanaya adigoo 8 milyan ah haddii aad adiga tashan weyday oo go'aan gaari kar weyday Soomaaliya fanna faray kama qodna welina wiilkii badbaadin lahaa iyo Soomaaliya ninka siyaasadeeda la socdo ee badbaadin karayo waa nin og dagaalkii Siyaad Barre iyo ay galeen reer galbeedka ee loo ballan qaaday in jiil la keensan doono wax kasta laga fushado wax kastana ogolaado laakiin jiilka maanta jooga uu yahay kud u gur oo qajo u gur oo military hadii laga qaado military kale uu soo galayo sida ayaan anigana oo la baxay lama arkaan shanta Soomaaliyeed maalin ayaan hubaya oon hayaa maadaama habda iftiin yar oo Soomaalinimo ay soo baxday dhalinyarada Soomaaliyeed inay wax fahmi doonto oo yoolkan aniga fahansanay ay wada fahmi doonaan beenta iyo khiyaaliga loo jilay filimka ah ee maalin walba loo dhiibayo oo leeyahay ma arta qabiilkeenaga iyaga lagu jilayo oo iyaga cimrigooda lagu dhameeyay ayay ogaan doonaan kadibna waxay ku soo fariisan doonaan salka sida ayaan u dhahaa Soomaaliya ma dageyso faanool wiilkii dajin lahaana lama hayo haddii aad u baahan tahay barnaamijkan oo faahfaahsan waxaan soo codso waa soo deynayaa waa sirdoonka shanta Soomaaliyeed lama arkaan